marka yas'alu ayaana yawma alqiyaama. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxay isweydiinayaan qiyaamuhu fa idaa bariqa albasar wa qasafa alqamar wa jumica ashamsu walqamar yaquulu alinsaanu yawmaidin ayna almafar kalaa laa wazar ilaa rabbika yawmaidin mustaqar. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waa markuu araggu wareero yacni hamba wareera oo waqasafa alqamaru uraxdii madoobaata dayaxa madoobaada waqasafa alqamaru dayaxii madoobaada wajumica ashamsu walqamar dayaxii iyo uraxdii la kulmiyo. insaanka maalintaas yidhaahda xaggee loo carari, ayna almafar, xaggee loo carari, xaggee loo baxsan. marka la yidhaahdo kalaa laa wazar, carar ma jiro, rabbigaa xaggiisa loo sugnaani, rabbigaa xaggiisa ayaa loo sugnaan. markii rabbigaa xaggiisa loo sugnaaday, ruux walba waxaa la isku waramayaa maalintaas waxaa soo hormarsatay iyo waxaa soo dibdhigsatay. yunabbahu linsaanu yawmaidin bimaa qadama wa akhar. wuxuu soo hormarsaday maalintaa iyo wuxuu soo dibdhigsaday baa loo warami, xataa inkiri maayo, bal iska daayay uu markhaatiyuu ku noqon. bal insaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macdiira. insaanka naftiisu iyo markhaati u noqon haba tuurtay cudurdaar. adaa markhaati furi oo maxay yidhahdaa yacni waxaa laga wadaa insaanka naftiisu ka markhaati furaya. alyawma naktamu calaa afaayihim watukallimnaa aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun. waa maalin maxay yidhahdaa gacmo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay gacmaha baan ka hadlisiin, lugaha waxay ka markhaati kacayaan waxay soo kasbadeen bimaa kaanuu yaksibuun. waxay kasbanayeen ay shaqaysanayeen bay markhaati ka noqonayaan maxay yidhahdaa lugaha. sidaad maraggan ku saaran iyo maxay yidhahdaa iyo lugahaada iyo gacmahaada intaba waxay ka markhaati kacayaan waxaa soo sameysay, waxaa qabatay, waxaad maxay yidhahdaa soo shaqaysay bay ka markhaati kacayaan. sidaaddeed bal insaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macdiira uu ilaahi subxaana wa tacaala leeyahay. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qiyaamuhu inay tahay maalin weyn inay tahay buu rabbi tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay. alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuthuun liyawmin cadiim. dadka mamaleynaya miyaa in la soo saari, kuwaa mamaleynaya miyaa in la soo saari maalin weyn in la soo saari mamaleynaya miyaa buu rabbi tabaaraka wa tacaala yidhaahday. sidaadii rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuuna ku tilmaamay inay tahay maalin weyn. wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay inay tahay maalin culus, yawman thaqiila buu rabbi tabaaraka wa tacaala yidhaahday. waa maalin culus. dadku waxay doorteen oo jeclaadeen midda degdegaysa bay jeclaadeen oo ah adduunyo. midda gadaashooda ah oo tahay yawman thaqiila way ka tageen. marka rabbi wuxuu ku tilmaamay inay tahay yawman thaqiila. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay sheegay inay maalintaas ay caruurta noqon doonaan maxay yidhahdaa ay yeelan doonaan cero. caruurta waxay yeelan doonaan cero. waa maalin ay yeelan doonaan caruurta yaryar cero. yawma yajcalu wildaanu shiiba buu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay. waa maalin ay yeelan doonaan caruurta yaryar cero. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhaahday maalintaa waa maalin uu qofku ka carari doona walaalkiisii iyo hooyadiisii, aabihiisii iyo miduu qabay iyo maxay yidhahdaa caruurtuu dhalay. sababtuu rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi sababtuna waxay tahay dhib waxa ugu filan tiisa, mashaqo iyo dhib waxa ugu filan tiisaa deeqda buu rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay. yawma yafiru lmaru min aqiihi wa ummihi wa abiihi
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه. marka tiisaa ka ku filan buu Rabbi tabaaraka wa tacaala yidhaahday. maalintaas waa maalin oo midda wax nuujinaysaa ay iloobi doonto, midda uurka sidana ay dhigi doonto uurka. dadkan loo malayn inay sarqaansan yihiin mana aha dad sarqaansan. Rabbi tabaaraka wa tacaala buu yahay كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ومالين تسويا ومالين marka waa kaas shidadaas iyo dhibkaas ayaa naga dambeeya. shida iyo dhib aad u daran ayay leedahay. sadaradeedu iyadoo taa naga dambeyso baa waxaad arki dadka inay maxay yidhaahdaa taamooyihiin. taa waa qadka uguma jirto. waxa ka dambeeya oo sidaas u daran shidadaas iyo dhibkaas loo socdo naga horeyso inay maxay kuwaana qaataan oo ay u diyaargaroobaan ee Rabbi tabaaraka wa tacaala ay baryaan. Allah wuxuu leeyahay in dadka badankooda aayaadkan bay qaafil ka yihiin. waxaan tilmaamayna waxaan sheegayna waxaasoo dhan qaafil bay ka yihiin Rabbi tabaaraka wa tacaala leeyahay. marka walaalayaal ruux walba taabaa sugayso shidadaas iyo dhibkaas loo socdo ruux oo naga horeysa weeyaan. intaan tilmaamnay waa in qaar ka mid ah oo Rabbi tabaaraka wa tacaala tilmaamay weeyaan. qaar ka mid ah Rabbi waa badanta calaamooyin iyo sifooyin iyo maxay yidhaahdaa beelada. marka taa naga dambeyso saan u dhaqno. wallaahi haddaan ogaan lahayn haddaan cilmi iyo aqoon u lahaan lahayn saan u dhaqman lahayn. dhaqankeena iyo ficilkeena saan ahaan nabi baa salawaatullaahi rabbi wa salaamun calayhi wallaahi law taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliilan wala bakaytum kathiiran. wallaahi haddaad ogaan lahayn waxaan ogahay in yar baad qosli lahaydeen in badan waad oonlahayd. marka haddaan aqoon u leenahay waxaas naga dambeeya iyo ahwaasha dhibta taala aakhiro iyo maxay dhahay qiyaamo saan u dhaqmayno. marka aqoontii ayaa naga maqan. sadaradeedu walaalayaal waa inaan maxay dhahdaa u diyaargarownaa isku diyaarina weeyaan. aan iska dhana maanta sidna maanta bisqiyaan iyo waxaan wadno